muddo 7 casho ah inay laamaha amniga la soo xiriiraan inay hawshaas ka baxeen cadeeyaan liisaskooda waan haynaa magacyadooda waan haynaa 7 bari gudahood ciddii ku imaan weydo dawladdu tallaabo sharci ka qaadi doonta dadkaas waxay isugu jiraan dhaqan waxa ku jira culimo waxa ku jirta ganacsato waxa ku jirta dad kaleeto oo bulshada jaah ku leh oo noocyo kala duwan halka aan ku faahfaahin doono sida aad la socoteen waxa waayadan ciidamada difaaca Puntland ay ku jireen howlgal ay uga cirib tirayaan argagixisada Daacish buuraha silsilada Golis ee Calmiskaad sida aad la wada socoteen howlgalkani wuxuu bilowday 26kii bishii 12aad kaas oo loogu magac daray howlgalka Hillaac ee safaynta halkasta ay joogto waxaan sidoo gaara u salaamayaa bulshada reer Puntland gudaha iyo dibadba sida aad la socoteen waxa waayadan ciidamada difaaca Puntland ay ku jireen howlgal ay uga cirib tirayaan argagixisada Daacish buuraha silsilada Golis ee Calmiskaad sida aad la wada socoteen howlgalkani wuxuu bilowday 26kii bishii 12aad kaas oo loogu magac daray howlgalka Hillaac ee safaynta argagixisada Puntland waxa uu runtii ahaa howlgal si wanaagsan loo qorsheeyay diyaar garow fiican laga yeeshay dhammaan qaybaha uu u baahan yahay si uu howlgalkaas u hirgalo laga taxadiray haddii aan lahayd ciidamada haddii aan lahayd gudiyada taakulada haddii aan lahayd howlwadeennada caafimaadka haddii aan lahayd bulshada iyo baraarujinteeda iyo waxsheegeeda iyo dhammaan hay-adaha dawladda ee kala duwan inay qaybta qolo walba ay ku leedahay ka qaataan howlgalkaas oo 26kii wajigiisa koowaad ee militariga ahaa oo bilowday magaalada Darjaalle oo ka bilowday waxa uu soo gabagaboobay wajiga koowaad 28kii bishii koowaad waxa sidoo kale dawladda Puntland ay ku dhawaaqday 30kii bishii koowaad in wajiga labaad ee howlgalkaas ee militariga ahaa ee safaynta ah uu bilowdo isagoo ka bilowday wajiga labaad magaalada Turmasaale waxa uu maanta oo 27kii bishii labaad ah uu ku soo idlaaday wajigiisii labaad magaalada Dasaan oo ahayd xarunta ay ka hogaaminaysay Daacish geeska Afrika iyo dhammaan howlgallada caalamka ay ka furisay isqarxinta sida xogaha caalamiga ah iyo xiriirka dawladaha nagala shaqeynaya ay sheegeen Dasaan iyo Daadaar iyo Shabaab waxay ahaayeen meesha xarunta u ah oo lagu tababaro dadka loogu talagalay inay caalamka oo dhan ay ka argagixiyaan ummadaha waxay xoguhu sheegayaan dad howlgallo ka sameeyay waqooyiga Ameerika qaaradda Yurub iyo dalal kale oo Aasiya iyo Carabta ah
inay saldhig u ahayd oo lagu tababaray halka madaxda hawshaas qorsheyn jirtana saldhigeedu uu ahaa halka sida duqayntii Mareykanka ee labada mar ahayd lagu cadeeyay warbixinta Mareykanka inay halka ku beegsadeen dadkii ka shaqeyn jiray inay soo ururiyaan dadka Mareykanka hawlgallada iyo Yurub ka geysta calmiskaad ma ahayn khatar Puntland oo kaliya ma ahayn khatar Soomaaliyeed oo kaliya ma ahayn khatar qaaradda Afrika oo kaliya waxay ahayd khatar caalami ah oo runtii u sahashay fursadda dalkeen uu ku jiro iyo dalka aan dariska nahay Yemen burburka ka jira iyo dagaalada ka soo cusboonaada dhammaan geeska Afrika inay helaan marino ay uga gudbaan dalalkaas waxayna ku talagaleen meel aan ishu arkayn oo runtii strategically adag fursadna u haysata badda Hindiya iyo badda Cadmeedba iyo badda Carabta halkaas inay muddo ku ururinayeen dhammaan dadka hawlahaas maamula sidoo kale dadka hawlahaas fuliya qorshaha laga hortagay wuxuu ahaa muddo aan badnayn oo dhowr bilood ah si ay u helaan shaqooyinka ay qabanayaan kuwa intaa ka badan inay ballaariyaan deegaanka ay gacanta ku hayaan oo ujeedadu ahayd in guud ahaan gobolka Bari gaar ahaan magaalada Boosaaso ay gacanta ku dhigaan waxaa maanta gacanta lagu dhigay oo Ilaahay mahadiisa gantaaladii iyagu ay sameeyeen oo ugu talagaleen in magaalada Boosaaso nidaamkeeda difaac iyo ciidamadeeda iyo xarumaha dawladda lagu burburiyo si dadka loogu khasbo inay isu dhiibaan argagixisada xogo muddo la ururinayay iyo dadaal dawladdu ay gelisay iyadoo kaashanaysa saaxiibadeeda caalamiga ah waxay ku guuleysatay kuna khasbanaatay inay howlgalkaas ay u qalab qaadato Ilaahay subxaanahu wa ta'aalana wuxuu nagu siiyay gacan waan uga mahadcelinaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala hawshaas baaxadda leh ee bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan Puntland ay qabsatay waxaan marka hore rabaa inaan u mahadceliyo ciidamada geesiyaasha ah ee reer Puntland oo runtii guusha maanta la gaaray inteeda badan leh hadday tahay qorsheyn hadday tahay howlgal iyo hadday tahay nafhurid isugu daray sida quraankeenu qabo shuhadadu ma dhiman waa ay nool yihiin Ilaahay waan irsaaqaya inta ku shahiiday Ilaahay laha oo u ballan qaaday inay jannada firdawsa galaan ayaan subhanahu wa ta'ala aaminsanahay waana maleynaynaa inay jannada galayaan inta ku dhaawacantay waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu si dhaqso ah ugu booygadho arintaas runtii waxay muujisay dadka reer Puntland gudo iyo dibadba inay noqdaan dad isku duuban dalkooda ilaashanaya cadawga iska dhicinaya qof walbana uu uga qayb qaatay meel kasta uu joogo intii karaankiisa kii adin uga qayb qaadanayay kii af uga qayb qaadanayay kii dhaqaale uga qayb qaadanayay kii tala iyo fikir uga qayb qaadanayay intaba waxaa la oran karaa dadka reer Puntland maanta arintaas uma aysan kala harin iyo dadka Soomaaliyeed ee samajacalka ah iyo dhammaan saaxiibada caalamiga ah ee khatartaasna la arkay waxaan si gaar ah rabaa inaan ugu mahadceliyo dalalka sida tooska ah shaqadaas wax uga waday oo runtii ugu horeyso dalka Imaaraadka Carabta oo doorka ugu weyn lahaa dalka Mareykanka Ethiopia iyo Kenya oo ahaa dalalka runtii hadday tahay xog iyo hadday tahay xeeladba gacanta ka geysanayay sidii uu howlgalkaas uu miro dhali lahaa dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan shaqada la qabanaya shaqo Soomaaliyeed baa shaqadaas Soomaali sida ay u dhisan tahay Puntland bay u igmatay inay deegaanada Puntland maamusho inay deegaanada Puntland ammaankeeda sugto dawladda iyo dadkeeduna waa ku mahadsan yihiin shaqadaas baaxadda ay qabteen aniga oo kala gureyn waxaan rabaa maanta
inaan halka uga dhawaaqo in wejigii labaad uu soo gabagaboobay sidoo kaleetana birito oo 28 bisha ah oo wejigii saddexaad uu bilaaban doono ilaa hadafku waxa weeye la cirib tiro cid argagixiso ah oo Puntland dhaqdhaqaaq ku leh xarumo ku leh howlgallo ka sameynaysa ilaa laga dhamaynayo wejiyadaas way socon doonaan markuu mid dhamaado oo mid bilaabanayana dadweynaha waan u sheegi doonaa ilaa geeyiga Puntland oo dhan uu noqdo geeyi ka bannaan ka xor ah argagixisada oo dowladdiisa iyo dadkoodu ay maamulan doonaan waxaan rabaa iyadana inaan halka uga hambaleeyo ciidamada Soomaaliyeed iyo ciidamada dowladaha xubnaha ka ah dowladda Soomaaliya ee sidaas oo kale iyagana howlgallada uga wada deegaanada kaleeto ee Soomaaliya dhamaantood meel kasta ay joogaan ciidamada Soomaaliyeed waxaan ugu hambaleynayaa shaqadaas waajibka ah sida ay u guteen nafurnimada ah sidoo kale inta dhimatay ee shahiiday ilaahay waxaan uga baryayaa jannatu firdawsa inta dhaawacana waxaan uga baryayaa inuu ilaahay u boogadhiyo maamulada iyo dadka howlaha gacanta ku hayana waxaan ilaahay uga rajeynayaa inuu u fududeeyo hawshaas adag ee ay ku jiraan dabcan waa hawl qaran waa hawl bini'aadanimo waa hawl mas'uuliyadeed oo Soomaalinimo waa hawl u baahan in laga wada qayb qaato dadka Soomaaliyeedna u jeestaan cadawga dhabta ay leeyihiin waa argagixisada dalkooda iyo dadkooda ku soo dushay dabcan kama marna khilaafaadka iyo dhibaatooyinka dadkeena ka dhex jira oo fursadaas la oran karo annaga banaynay in dalkeena la haweysto in dalkeena dibadda looga soo duulo in dad cadow ah ay ka dhigaan dhul aan la lahayn oo dhulkii la helay ah sidii meelo badan adduunka loo oran jiray taariikhda ku dhulka Soomaaliyeed inuu noqdo dhul baylaha dadkiisa sabab u ah waliba siyaasiyiintiisa waxgaradkiisa iyo dhaqankiisa ayaa saldhig u ah arrintaas waxaan rajeynayaa dadka Soomaaliyeed inay xisaabaadka dib u fiiriyaan dalkooda iyo dadkooda u naxaan mustaqbalkiisa ka shaqeeyaan waxyaabaha lahwiga ah ee waqtiga lagu dhuminayo in dib loo akhriyo oo dib loo saxay u baahan waxaan rabaa inaan u baaqo dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dowladnimada Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed oo dhan baa leh meel kasta uu joogo dowladnimada Soomaaliyeed waxay ku dhismi kartaa wada hadal is afgarad iyo heshiis dhab ah madaxdu awood uma leh inay qorshaha siday rabaan iyagu u fuliyaan waanu ku salaysnaa rabida dadka iyo sharciga runtii dowladda Puntland intaysan tallaabo qaadin waxay aad u ilaalisay midnimada dadka shaqadan inay tahay shaqo dadka Soomaaliyeed leeyihiin waxay kala tashatay dhaqanka waxay kala tashatay culimada waxay kala tashatay ganacsatada waxay kala tashatay cid kasta oo dalkan saameyn ku leh hogaamin ku leh waxay u bandhigtay dadkeeda gudaha jooga waxay u bandhigtay dadkeeda dibadda jooga shaqada maanta socoto shaqo xukuumadda maanta jirta kaliya ee leedahay maaha waa shaqo dowladda Puntland leedahay dowladda Puntland marka la leeyahay maaha xukuumadda maanta jirta waa dowladda oo dhan oo shacab iyo dhul iyo dad oo isku jira weeye annagu hoggaankiisii baan nahay la doortay waxaan ku shaqaynayno waxa weeye waa sharciga iyo dastuurka iyo himilooyinka ummaddan ay leedahay reer Puntland taas ayaa qorshayaasha saldhig u ah waajibaadka inaan difaacno cadow ku soo duulay ka qabanno qorshe u sameeyno waa waajibaadkeena dastuuriga ah oo dadkeena naga sugayeen sidaas ay tahay waxa nagu xambaaray inaan anaga waajibkeena gudano waajibkeena inaan gudano waxa mahaddeeda iska leh dadkii marka hore noo igmaday iyo dadka gacanta nagu siiyay inaan shaqada gudano oo runtii dadka reer Puntland oo dhan ah waxaan rajeynayaa waajibka Soomaali naga saaranna inuu noqdo waajib dadka Soomaaliyeed oo dhan leeyihiin dadka madaxda ay u igmadaan ay gartaan waajibkan inuu yahay waajib loo dhiibtay dadkuna ay gacan ku siiyaan oo ay ka dhaafaan dhaleecaynta iyo niyad jabka madaxduna ay garato ammaanada sida ay u gudan lahayd si sharci ku dhisan inay noqoto oo dadkoodu raalli ka yahay arrintaas ma rabo inaan ku fogaado laakiin waxaan dirayaa baaq in dadka Soomaaliyeed dalkii halis uu ku jiro dalka Soomaaliyeed qorshayaal runtii iyo xogo
waqtigeeda la soo bandhigi doono ayaan helnay oo khatar aad u weyn xambaarsan khaasatan daacish qorshayaasha ay lahayd oo waqtigeeda aan la wadaagi doono dadka marka howlgal ku dhammaado waa qorshe runtii walaac gelin kara qofkii mas'uul ah khatarna gelin kara mustaqbalka Soomaaliya waa qorshe aan ku koobnayn dad Soomaaliyeed oo kaliya dad ajnabi ah oo gargixisata ah waa qorshe runtii aan rabin halka inaan ka faahfaahiyo oo khatartiisa leh oo u baahan in si mug leh looga fiirsado arrintaas dalkeenu inuu beelaha noqdo waxaa saldhig u ah khilaafaadka bulshada ku dhex jira iyo ku dhaqan la'aanta dastuurka heshiiska lagu yahay waxaan ka digayaa mar labaad wax kasta oo bulshadeena kala kaxayn kara in madaxda Soomaaliyeed ka fogaato wax kasta oo isku soo dhaweyn karana inay waqtiga geliso Puntland waxay diyaar u tahay ku dhaqanka sharciga ilaalinta dastuurka Puntland iyo kan federaalka ah waxay diyaar u tahay dhammaan geeyiga Soomaaliyeed waajibka ka saaran inay ka gudato iyadoo kaashanaysa ummadeeda guud ahaan waxaan rabaa halka inaan baaq uga diro dadka Soomaaliyeed ee reer Puntland ah ee ururka argagixisada daacish la shaqeynay ee magaalooyinka ku sugan ee aan furimaha lagula dagaalamay joogin taakulada ka qayb qaadanay dadka lacagaha ka qaaday dadka gudbinay iyaga ku soo degayay shirkadaha u furto ganacsadada ka dhigay qaxootiga ka dhigo guryaha dejiyay dadkaas waxaan rabaa inaan ugu baaqo muddo 7 casho ah inay laamaha amniga la soo xiriiraan inay hawshaas ka baxeen cadeeyaan liisaskooda waan haynaa magacyadooda waan haynaa 7 bari gudahood cidii ku imaan weydo dawladdu tallaabo sharci ka qaadi doonta dadkaas waxay isugu jiraan dhaqan waxa ku jira culimo waxa ku jirta ganacsato waxa ku jirta dad kaleeto oo bulshada jaah ku leh oo noocyo kala duwan halka ku faahfaahin doono 7daas bari waxaan ugu talagalnay anagu ilaalinayna mustaqbalka dalkeena iyo dadkeena fursadaas inaan siino khaladka ilaahay baa khaldama ah ninkii khaladkiisa ka soo noqda dadkiisu waxay rajaynaynaa iyo dawladdiisu inay cafis fidin doonto qofkii cafiskaas qaadan waayay tallaabadiisa waqtigeeda imaan doonta waxaan kaloo rabaa inaan u sheego dadka cadawga ay soo duulay 7daas bari cidii isku soo dhiibaysa dalalkooda ku noqonaysa isaga tagaysa fursad bay haystaan waan ognahay maataa ku jirta xaasas baa ku jira caruur bay keensadeen hadday maqlayaan ma doonayno inaan maxas iyo maata layno ay isu soo dhiibaan dawladda Puntland haddii intaa dhici weydo waxaan rajaynayaa dawladda Puntland tallaabada ku habboon inay qaadato ciidamada waxaan halka farayaa howlgalku biri laga bilaabo wajiga saddexaad oo qorshihiisu ay og yihiin saraakiisha hogaaminaysa inuu sidiisa u fulo inuu hakad yeelan inuu sidiisa u socdo bisha Ramadaan ee barakeysan inuu howlgalka sii socdo iyo bilaha ka dambeeyaba ilaa laga xiribtirayo Puntland ciidamadeedu har iyo habeenba waa soo jeedaan shaqadoodu waxay noqon doontaa joogto dawladda Puntland joogto u jirta dadka reer Puntland gudaha iyo dibadda garab istaagin waa inuu joogto ahaado hawshan loo istaagay waxaan rajaynayaa inay noogu soo idlaato si kulligeena wada farax gelisa oo waajibkeena noo horseeda inaan wada gudanay dalkeena iyo dadkeena ay ku noolaadaan nabad iyo deganaansho iyo xasilooni si horumarku u baraaro bulshadeenu ay u kobocdo dalkeenu uu xasilooni u helo baaqaga ugu dambeeya dadka Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah waxaan oran lahaa inta aanan waagu baryin oo aanan lagu maadsan xisaabaadka dib ha loo fiiriyo dib ha la isugu noqdo dalkan meel halis ku socda dadka mas'uuliyiinta ah ee hadda xilalka haya dadka xilalka soo qabta dadka waxgaradka ay xilalka qaban doona mas'uuliyadda waa mas'uuliyad wadareed u baahan in loo wada istaago wax kala jiidasho iyo qabaa'il isdiidan iyo kooxo isdiidan waxa maanta dalkeena beelaxda ka dhigay dadka Soomaaliyeed dib ha isugu noqdaan dib ha wada hadlaan waxaan rabaa halka inaan ka faro ama u soo jeediyo dhammaan dadka Soomaaliyeed qabaa'ilka in la joojiyo colaadaha qabiilka ku salaysan
colaadaha siyaasadaha ku salaysan colaadahaasoo dhan waxay wiiqayaan oo fursad siinayaan argagixisada waxaan tacsi gaara u dirayaa meelaha weli hadda dagaalada argagixisada iyo dhibaatadu ay ka socoto anuuna kala soocayn kala magacaabayn waxaan u rajaynayaa ciidamada kala duwan ee howlgallada ku jira inuu ilaahay u fududeeyo inay ka hortagaan isku dayada iyo dhagarta lala maagaya dadka Soomaaliyeed